kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada. maamulka Puntland maanta waxay qaadeen tallaabo filan waa ku noqotay wadamada dariska iyo go'aan culus oo run ahaantii xataa reer Puntland aysan filaynin xukuumaddu inay go'aan noocaas oo kale ay ku dhaqaaqi karto. ajaanibtii maalmihii la soo dhaafay la ururinayay ee jeelasha Puntland laga buuxiyay ee sida sharci darrada ah deegaanada Puntland ku soo galay ee shacabkaas reer Puntland ay la dhibaraayeen ee marar badan xukuumadda ay u soo jeediyeen war dadkan ma laga qabto ee warbaahinta ay la taagnaayeen maanta candamaydlayaasha iyo waaraadyada ayaa intii laga buuxiyay ayaa lagu daagureeyay dalka Ethiopia. inta badan ajaanibta laga hadlayo waa Ethiopian sharci darro ku soo galay waa sida Oromada iyo waliba Axmaarada labada qowmiyadood ayaa ugu badan oo iska qulquli oo dhulkii Soomaaliyeed meel walba buuxiyay. maamulka Puntland qaybihii ugu horeeyay oo dhowr gaari ka kooban ayaa maanta dib loogu celiyay dalkooda kadib baaritaan lagu sameeyay inaysan markaasi kooxda aysan ka tirsanayn wadankooda ayaa dib loogu celiyay. dhanka kale inta howlgalladan ay socdeen waxaa jirta Ethiopian hantidoodii laga boobay sida ay qorayso warbaahinta gudaha ee dalka Ethiopia iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah culimada oo ka hadlay arrintaasi sida ay wax u dhaceen. Sheekh Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah culimada waaweyn ee Puntland ayaa ka hadlay dhulkaasi amaandhahan dadkaasi hantidooda la boobay. waan dul istaagi doonaa. waxaan dhinaca kaleeto iyadana mid iyo labo aan ka dul istaagi doonaa warbaahinta gudaha ee Ethiopia gaar ahaan waliba wargeyska fadhigiisu u yahay magaalada Addis Ababa ee lagu magacaabo Addis Standard ayaa waxa uu sheegayaa in 3 qof oo Ethiopian lagu dilay magaalada Boosaaso sababo la xiriira in ay ka tirsanaayeen kooxda Daesh. laamaha amniga ayuu sheegay inay toos u toogteen dadkaasi oo muwaadiniin Ethiopian ah. haddaba arrintaasi iyo waxa ka jira waan dul istaagi doonaa. dhanka kale warbaahinta gudaha dalka Ethiopia siyaabaha ay uga hadlayaan howlgalka Puntland ay kula jirto ciribtirka kooxda khawaarijta Daesh ayaad moodaa in Ethiopia siyaabo kala duwan ay u qaada dhigayaan warbaahintoodu oo ay siyaasadeynayaan arrintaasi oo markaasi abuuri karta xiisad Puntland iyo Ethiopia ka dhex bilaabata. iyadana waan iftiimin doonaa. waxaan dhinaca kaleeto iyadana dul istaagi doonaa waxa ay uga dhigan tahay shacabka Puntland ajaanibta laga tarxiilaya deegaanadooda iyo waxyaabihii ay ka faa'iidi jireen ayaan iyadana iftiimin doonaa haddii aan layno. soo dhawaada muuqaalka like saara fogeeya meel dheer ka tuura. aynu ku bilownay dowladda Puntland ayaa maanta qaaday tallaabo run ahaantii aan la filayninba oo wadamada dariska xataa waji gabax ku noqotay sida waliba gaar ahaan Ethiopia oo kaleeto iyo waliba ajaanibtii ku jirtay gudaha deegaanada Puntland. maalmihii la soo dhaafay ajaanib si sharci darro ku soo gashay gudaha deegaanada Puntland ayay laamaha amnigu ku howlanaayeen sidii loo soo qaban lahaa waana qaybo ka mid ah howlgalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta cadawga ku soo duulay deegaanada Puntland. inta howlgalka uu bilowday ee uu ka bilowday buuraleyda gobolka Bari waxaa soo baxday oo la ogaaday in dad badan oo masaakiin iska dhigayay oo magaalooyinka ku noolaa ay la shaqaynayeen kooxda argagixisada ee Daesh ee buuraleyda gobolka Bari ku dhumaalaysanaysa. taasi ayaa marka waxay sababtay in gabi ahaanba ajaanibta sharci darrada ku soo gashay deegaanada Puntland la qabto oo deegaanadoodii dalkooda dib loogu celiyo. boqolaal ka tirsan muwaadiniinta Ethiopianka ee sharci darrada ku soo galay gudaha deegaanada Puntland ee maalmo dhaweydna la qabtay ayaa maanta dib loogu celiyay dalkooda iyadoo waliba ciidamada Ethiopia ee xuduudda jooga lagu wareejinayo si ay markaasi deegaanadoodii kale ay ugu sii simaan. Puntland go'aankan ay qaadatay run ahaantii waa go'aan lama filaan ah. lama filaynin Puntland inay ku dhiiran doonto inay dadkaas shacabka Ethiopianka ee sharci darrada meel walba Soomaaliya ka mid ah jooga in sidaa ay sameynayaan reer Puntland oo dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu hogaamiyo intay go'aanka adag qaataan inay tay gawaari ka buuxiyaan ay ka tarxiilayaan deegaanadooda Ethiopia ku celinayaan lama filaynin filan waa ayay ku noqotay. warbaahinta gudaha ee dalka Ethiopia
ayaa ka sheekaynaysa dadkaasi lasoo tarxiilay sida loo soo tarxiilay etoobiyaankaasi ama puntland ay ula dhaqantay iyagoo weliba buunbuuninaya in qaarkood hantidoodii laga dhacay halka qaar kalena ay sheegayaanba in lagu laayay inta howlgalkani uu socday. warbaahinta gudaha gaar ahaan wargeyska fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa Addis Standard loo yaqaano ayaa waxa uu qorayaa in 3 qof magaalada Boosaaso lagu dilay inta howlgaladii ay Puntland ay ka bilowday buraleyda gobolka Bari iyo guud ahaan deegaanada Puntland 26 January howlgalka soo bilowday ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof oo Itoobiyaan laamaha amniga ee Puntland ay ku dhex toogteen magaalada Boosaaso. waxaa sidoo kale ay sheegayaan in kuwa kalena ay jiri karaan oo inta howlgalka uu socday Itoobiyaan badan ay laayeen laamaha amniga ee maamul goboleedka Puntland. waa sida iyagu ay u qorayaan. arrintan ayaa u muuqata in ay abuuri karto xiisad u dhaxaysa Puntland iyo dowladda federaalka Itoobiya, iyadoo markaasi warbaahintaasi ay ka dhigayaan in Itoobiyaanka la beegsanayo, la leynayo, Puntland ay u bareertay leyntooda, hantidooda la dhacayo, halka qaar kalena lasoo tarxiilayo. waa sida iyagu ay u bomboonayaan qaar ka mid a warbaahinta gudaha ee dalka Itoobiya. si kastaba Puntland go-aan adag ayay qaadatay oo la xidhiidha ciribtirka ajaanib walba iyo argagixiso walba iyo cadow walba kusoo duulay deegaanada Puntland, waana qaybo ka mid a sifooyinka lagu xaqiijin karo amniga shacabka reer Puntland iyo badqabkooda. si markaasi badqabka iyo amnigooda loo ilaaliyo waa in wax walba oo amniga khatar ku noqon kara laga ilaaliyo oo laga hortago. laamaha amniga tallaabooyinkan run ahaantii ay qaadeen waa tallaabooyin aad iyo aad bogaadinteeda leh. sifooyinka ay ku bilaabeen iyo halka howlgalladu sida ay ku bilowdeen iyo qaabka ay Puntland u wajahday ayaaba qaab xigmadaysan oo istiraatiijiyadaysan. taasi ayaana u suurtagelisay in gabi ahaanba laga taqaluso kuwii buuraha ku jiray iyo kuwii magaalada u joogayba. ajaanibtan kusoo qulqulaysa gudaha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa inay qaybinayaan qayb buurahay gelayaan iyo sidoo kaleeto argagixisada ayay ku beerayaan sida shabaab iyo daacish oo kaleeto, halka qaarka kalena ay magaalada joogayaan iyagoo markaa sifooyin kala duwan iska dhigaya. waxaan ogsoonayn maalmo ka hor in lagu dhex toogtay magaalada Boosaaso nin Yemen ka soo jeeda oo qaraxyo iyo miinooyin ku xabaalayay bartamaha magaalada. waxaa sidoo kaleeto lasoo qabtay nin isaga la socday iyo koox la shaqaynaysay oo 7 qof ka kooban. markii lagu isku daro 8 qof ilaa kii la dilay 9 qof ayay noqonayaan. dhammaantood waxay ahaayeen ajaanib markii laga reebo 2 qof oo markaasi Soomaali iyagu ah. 6 kaleba ajaanib ayay 7 kaleba ajaanib ayay ahaayeen. waxaa sidoo kale jirta kooxo badan oo hadda gacanta lagu hayo oo ajaaniba oo iyagu ay ku cadaatay inay la shaqaynayaan ama ay la shaqaynayeen kooxda gabalkeedu u dhacay dagaalka lagula jiro ee buraleyda gobolka Bari laga ciribtirayo ama laga sifaynayo. sidaas awgeed baa marka waxay sababtay in gabi ahaanba ajaanibta sharci darrada ku soo gashay ee dalka iska soo gashay in la qabto, la tarxiilo, la celiyo, dalkooda dib loogu celiyo. waana hanaan run ahaantii ka turjumaya dowladnimada iyo sidoo kaleeto in la ilaaliyo ahliga iyo sidoo kaleeto sida uu dastuurka uu qabo muwaadiniinta uu u ogolaanayo ama muwaadinka uu ogolaanayo soo gelista inuu dal uu iska soo galo. ma jirto hadda Itoobiya markaad aado qof sharci darro iskaga geli karaa ma jiro. qof walba sharci baa laga fiirinayaa, deeda sharciyaysan waa lagu xidhayaa, laamaha amniga ayaa ku xidhaya. wadan walbana waa sidaas si lamid ah. laakiin Soomaaliya sidaa ma ahayn. waayihii dambe waxay noqotay meel la iska soo galo, la iskaga soo qulqulo, qofku suu raba ka yeesho, si la raba laga samaysto. qofka dambiilaha wax soo laayay, midka wax soo dhacay, midka wax fara, midka wax haleeya, midka argixisada tahay, qof walba uu iska soo galo. Puntland marka talaabadan maanta ay qaaday ee boqolaalka ka tirsan shacabka Itoobiyaanka sharci darrada ku soo galay gudaha Puntland dib loogu celinayo dalkooda waa arrin bogaadinteeda leh. guul ayaana leenahay shacabka Puntland. dhanka kale maxay uga dhigan tahay shacabka Puntland? waxay uga dhigan tahay runaantii guul weyn. waxa waayihii la soo dhaafay baa aad ogsoonaydeen shacabka reer Puntland inay ka cabanayeen dadkan ku soo qulqulaya deegaanadooda. shaqooyinkii hoose oo dhan ajaanib ayaa la wareegatay, sharci darro ku soo gashay deegaanadooda. hadday noqoto xanaaniga, hadday noqoto ka gaari gacanka, hadday noqoto ka gaariga dejinaya,
hadday noqoto ka maqaaxida cuntada karinaya waxa weye shaaha karinaya wax walba shaqooyinkii hoosoo dhan waxaa la wareegay ethoobiyan adiga qiimaha aad kaga qaadayso bartamaha magaalada eed ku geynayso xaafadda meeshaad ka qaadan lahayd $1 ama $3 aad ka qaadan lahayd isaga wuxuu ku qaadanayaa $0.5 iyo wax ka hooseeya taa ayaa marka waxay sababtay in dadkii waxa weeye hoosoo dhan dabaqadii hoosoo dhan ay markaa saaxadda ka baxaan oo waxay cunaan ay waayaan oo macaluushu ay badato talabada marka puntland ay qaaday ee dadkan lagu tarxiilayo deegaanadooda lagu celinayo guul weyn bay u tahay shacabka reer puntland hambalyo ayaan leenahay guulaysta ayaan leenahay tallaabadaasi waan bogaadinaynaa nin walba deegaankiisa iyo dalkiisa ha ku sugnaado qofka imaanayana sifa sharciga ha ku soo galo immigrationka ha soo maro baasaboorkiisa ha loo soo garaaco waxa weeye markii loo soo garaaco sifa sharciga ku joogo inta loo ogolyahay sharcigu u ogolyahay ha joogo hadduu deganaansho saaranaya ha saarto qof la ogsoon yahay ha noqdo laakiin in la iska soo qulqulo buuraha la iska galo ummadda la dhaco la laayo la arbisho waa arrin fiican maaha dhinaca kaleeto warbaahinta etoobiya warkan ay buunbuuninayso waa in dowladda puntland naftirkeeda ay xaqiijisa weye caddayso weye haddii kale warkaas kicin shacab buu keenayaa oo dadka gudaha etoobiya laga yaabaa naftirkooda etoobiya joogee soomaalida inay waxyeeleeyaan adisaba markii la yidhaahdo dadka ugu badan ee maalgashaday ee magaalada adisaba maalgashaday waa reer puntland wey dabaqyada ugu dheer xaafadda booli markii la yidhahdo la joogo ee soomaalidu ay degtay ee bartamaha magaalada waxa weeye adisaba dadka ganacsiga kule waa reer puntland wey weliba afka ka ilaalin maayo majeerteen baa ugu badan marka waxaa loo baahan yahay dowladdu naftirkeeda tallaabooyinkan ay qaaday dadka lagu celinayo inay xiriir la samayso saraakiisha etoobiya mas-uuliyiinta etoobiya lagu wareejiyo gacan amniga hantidan la dhacay iyo waxaan la boobayana shacabka tallaabo sharciga laga qaado qofkii wax dhacayo la arko tallaabadan waa in dowladda looga dambeeyo dowladduna dowlad ay dadkan ku wareejiso si iyaga naftirkooda dadka dambiilayaasha laga yaabo inay ku dhex jiraan ay uga dhaxushaan oo markaasi tallaabo looga qaado si kastaba tallaabooyinkan waa tallaabooyin muhiima waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho